masaladii xalay ee ku saabsanayd heesta aynu khulaasayno kadibna aynu ka soconno. masalada heesta la yidhaahdo ama waxaan maansada la yidhaahdo waa magac guud oo shay bannaan iyo mid aan bannaanaynba ay soo hoos galaan. culammada muslimiintu khaasatan salafu saalix quruuntii khayrka badnayd culummadiisii saddex bay u qaybiyaan waxaan maansada ama heesta la yidhaahdo: mid bannaan iyo midaan bannaanayn kaan bannaanayn bay laba qaybood ka dhigaan, marka saddex waaxood buu noqonaya. qaybta koobaad waa taxale inuu ka hadalay oo waxaan loo yaqaano maansa hawleedku waa shay bannaan. maansa hawleed baa la yidhaahdaa marka beerta la falayo xoogow tixi bay qaadaan oy isku dhiirageliyaan oo isku caraabiyaan dadka beerta falaya. dadka guryaha dhisayoo kale xoogow maansay qaadaan oy markaa doonhayaan inay isku caraabiyaan oo ka howlgalaan. ninka cidda iyo geela waraabsanaya sidaasoo kale, gabadha masagada tumanaysa, ninka hawl qabanaya, qolyaha mujaahidiinta ah markay is caraabinayaan xoogo bay qac ka siiyaan. maansadaas loo yaqaana maansa hawleedka jiijiid badan ma laha, laxan ma laha, miisig ma laha, xumaan dadka looguma yeedhayo, waa shay iska bannaan cinda ahlilcilm. xalay waxaynu soo marray kalxudaa'i waannasbi, taas marka waxaa loo yaqaanaa khina bannaan. ruuxa bini aadamkeen fitradiisa lagu ciyaarinna wuu kala garanayaa waxa u dhexeeya maansa hawleed iyo heesta la yaqaanay caadiga ee hebel waa fannaan waa heesaale leh. ninka hadda geela shubanaya laba sac laga yaaba ama intuu duhurkii fadhiisto ceelkiisu intaa u shubahayo in gabalka ugu dhaco, intaana maansa uu tirinhayo la odhan maayo waa heesaa. geel jiro miskiin oo geeliisa waraabsanayn baa loo arkaa. ninkii saaka aroortii ku kalahay beere intaa falhayay ee gabalka ugu dhacay intaana heesahaya caraabinaya dadka beerta jebinaya looma arko inuu yahay heesaa iyo fannaan. marka waxa maansa hawleedka loo yaqaan ee carabna u yaqaaneen xudaa'u lacraab ama khinaa'u lacraab la odhan jiray, salafkuna ka hadleen, waa bannaaya hadduu ka badbaado edabdarro in layskugu yeedho ama axad bini aadan lagu dulmo lagu caayo. nooca labaad isagu waa xaaraan, laban uga qaybsamaa. waa khinaha loo yaqaano waa maansada heesta la yidhaahdo ee leh laxanka, ee leh isjejebinta, ee leh iswalaaqidda iyo edabdarridaad garanaysaa. isqaawin warkeeba jooji. khinaha noocaasa isagu waa xaaraan biijmaaci culamaa'i اlumma. waxa hadda heesta u taqaanaan iyo fannaaniinta aad tidhaahdaan iyo hebel waa fannaan waa heesaa aad tidhahdaan hawshay ku howlan yihiin waa xaaraan, waana masale ijmaaciya, khilaafna ma laha. wadaad dambo asagu iska soo rucleeyo xiiqsan oo hawl meel kaga go'an